بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaan doonayaa maanta inaan la wadaago mowduuc aad iyo aad u kooban. Muhiimadda uu leeyahay saaxiibku ayaan rabaa inaan la wadaago. Qofku inta ugu badan wuxuu u baahan yahay dad uu ku daydo, ama dad waxa uu qabanayo hormuud u noqda, ama dad waxa uu qabanayo talo iyo tusaale ka weydiiyo. dadka u dhowdhow ee noocaas ayaa loo yaqaanaa saaxiib. diinteena islaamku saaxiibka ama qofka u dhow ee rafiiqa loo yaqaano, ama khaliilka ama saaxiibka oo marka carabiga laga hadlayo ama la tilmaamayo luqadda mataqaanaa carabiga dad magacyo kala duwan loo yaqaano kaalin weyn bay siisay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almar'u calaa diini khaliilihi. qofku wuxuu leeyahay diinta saaxiibkii. macnahaan qofka u dhow yahay markasta ay wada joogaan saameyn badan bay noloshiis ku leeyihiin, waxyaaba badan bay isla saameeyaan. kani sida uu dhaqmayo ayuu kana kaga dayanayaa, kani sida uu yahaybu kana noqonaya. marka odhaha baa jirtay ahayd odhanaysay qofku waa inuu raadsado qofu la saaxiibo. haddii uu qofku waayo qofu la saaxiibo isfahmaana, waa inuu qofku naftiisa la saaxiibo. macnahaan qof baad u baahan tahay la saaxiibto. haddii aad qofka weydana, qofka kugu habboona haddii aad weydana, naftaada ayaa saaxiib ku anfacaysa ama ku noqonaysa. marka muhiimadda uu leeyahay aynu xusi karno waxaa ka mid a kow, saaxiibku talo ayuu ku siiyaa. tusaale ahaan maanta haddii aad doonayso inaad shay qabato oo saaxiibka ama saaxiibada aad weydiiso, yani talooyin badan bay ku siinaysaa ama ku siinayaan. shayga iyo laba shay asbardhiyo saxka labada shay bal ka waran, markaas ku oranaya ka iyo ka samee, iyo wax ka oranaysa ka iyo ka samee. lambar laba tusaale ayay ku tahay ama uu ku yahay. marka doonayso inaad wax qabato, saaxiibka ama saaxiibada kaga dayanaysa leedahay, yani hebel bas saasu sameeya ma heblaay saasay sameeysa. yani waa wax marka qofka ku abuuray in qofka kale waxa uu ka arko qofku inta badan uu ku dhaqmo, ama mataqaanaa isku dayo inuu ku dhaqmo. qofku wuxuu ka helayaa taageero qofku helayaa. tusaale ahaan oo kale markuu qofku xaaladdu ay ka jiiftay, xaaladdu sidiisii ayna ahayn, qofkan kale wuxuu noqonayaa markaa inuu mataqaanaa taageero weydiisto. hadday tahay mid niyad ahaaneed, haddii ay tahay mataqaanaa mid dhaqaale ahaaneed, ama hadday tahay markaa mid nooc kaleba ah. qodobka afraad, qaybsashada dareenada murugada iyo farxadda. labadii qof waxay qaybsanayaan saaxiibka ahaa dareenadii kala duwanaaye farxadda iyo murugada labadaba lahaa ayay markaa labadoodii qaybsanayaan. ayna isku dayayaan markaa kan kale inuu ka caawiyo haddii muruga hayso, iyo haddii ay farxadiba hayso kana kan kale inuu markaa ka caawiyo ayay markaa isku dayayaan. qodobka ku xigay ee shanaad, culaysyada jira ee labada qof ay dareemayaan ama midka kale uu dareemayo, kii kale uu markaa kala qayb qaadanaya oo isku dayay mataqaanaa markaa inuu saaxiibkiisii ama saaxiibadii caawiso mataqaanaa ay siiso. qodobka lixaad, maqnaanshiyaha labada qof markii mid ahaan uu maqan yahay, kii kale ayaa difaacaya. oo labada qof saaxiibka wax lagu yaqaana marka hebel wax laga sheego ama heblaay wax laga sheego, inuu difaaco yiraahdo hebel sidaa ma aha ama heblaay sidaa ma aha. macnahaan isagoo qofkii wanaajinaya, yani qofku wuxuu ku yaqaanay oo dadka u tusay inuu yahay qof wanaagsan. qofkaas markaa halahaada sifada ama iyadoo lahaan, marka agtiisa qofka laguma xaman karo ama maqnaanshiyaha asaasiga markaa uu difaacaya. qodobka toddobaad, horumarka qofku markuu doonayo inuu gaado, qayb buu markaa saaxiibku ka yahay, dhiirigelintiisii, taageeradiisii, tusaalihiisii qayb bay markaa ka noqonaysaa inuu qofkan kale u taageero. qodobka sideedaad, dhiirigelin buu qofka ka helayaayoo dhiirigelintii hadday noqoto mataqaanaa mid taageero lacageed, ama ay noqoto mid afeed, ama ay noqoto mid dhiirigelin guud, qofkii kale dhiirigelin buu markaa ka helayaa. qodobka sagaalaad, qofkan wuxuu yahay muraayad. tusaale ahaan oo kale hadduu qofkan waxyaabo aan wanaagsaneyn inuu sameeyo, inuu qofkan iska daa ku yidhaahdo, inuu qofkan ku yidhahdo waxaan kuma fiicna iska daa, inuu qofkan uu la taliyo, inuu waxyaabadan uu siiyo. qofkan kale muraayad buu markaa saaxiibku yahay, waana qayb ka mida la dhahda qofka muraayadiisa oo isku daawanayo, isku eegayo kolba sida uu noqonayo. qodobka u dambeeya, qofka saaxiibku wuxuu ku anfacayaa alla ka cabsiga. ilaahay subxaana wa taala inaad ka cabsatid salaadihii
iyo soonkii iyo dhowr soonaantii wanaagii inaad ku dadaashay ayuu ku amraya wax adiga ku wanaagsana markaa uu kuu sheegaya isagoo markaa talooyin badan dhinacyo kala duwan ka cadsiinayo kule dhow saasi ma fiicna saasi way wanaagsan tahay saasi kuma qurux badna isagoo markaa ina xumaana ka ina qofkii laakiin si wanaagsan kugu sheegaya ayuu saaxiibkaagii ama saaxiibada ay alla ka cabsiga iyo wanaagii ay kuu sheegaysaa dhowrka qodoban isleeyahay muhiim buu yahay saaxiibku haddii la waayana qofku inuu naftiisa la saaxiibaya markaa muhiima laakiin qofkii heli kara ee doonaya inuu saaxiib wanaagsan samayso sifooyinka aynu sheegnay ha ku qiimeeyo haddii uu ka waayana qofka kale dee kuma qasbana markaa inuu la joogo waxaan jeclaan lahaa asxaabtiina inaad la wadaagtaan dhammaantii waad mahadsantihiin